kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha mudan ee hawada laga socdo daawadayaal ku soo dhawaada waraysi aan maanta halkan kula yeelanayno madaxa suuqeynta shirkadda Transfer Galaxy ee xawaalada lacagaha oo aan ku soo booqanay xaruntooda magaalada Urburu ee wadanka Sweden. runtii Transfer Galaxy waa shirkad xawaalada lacagta ay furteen dhalinyaro Soomaaliyeed oo ah shirkad caalami ah oo runtii muddadii ay dhisnaydna samaysay horumar aad u ballaaran oo la taaban karo ayaa maanta waxaa noo suura gashay inaan ku soo booqno xaruntooda si aan wax uga weydiino waxyaabaha ay soo kordhiyeen shirkaddan muddadii ay dhisnayd. mudane Mustafa marka hore waa ku soo dhaweynaa barkad aad baad mahadsantahay walaal inaad halkan ugu soo booqato maanta adiga iyo madaxda Home Cable ba iyo shaqaalaheeda runtii aad baan runtii u mahadsantahay sida mar walba ugu heelantiin bulshada Soomaaliyeed inay adeegtaan. waayahay Mustafa maadaama maanta shirkadiina aan soo booqnay oo iska wareysanayno shirkadda Transfer Galaxy oo sida carabka aan ku dhufanayna iyadoo muddo yar dhisneed haddana aad horumar aad u ballaaran aad samayseen oo la taaban karo marka waxaan doonayay bal inaad ugu horreyn noo sheegto waxaad soo kordhiseen muddadii aad dhisneedna ama waxa idin qabsoomay. muddadii aan runtii shirkaddan asaasnay 2014 ilaa maanta runtii wax badan baa noo qabsoomay waana wax Ilaahay loogu mahadiyo waxaan soo kordhinay adeegyo casri ah dadka Soomaaliyeed runtii adeegyo ay u baahnaayeen markii hore waxa dadku ay systemyada lacagaha ay ku diri jireen Transfer Galaxy markii hore waxa walaad waqab baa jiray dadku lacagaha ay ku diri jireen qaabkii baan wax ka bedelay qofku waxaan u sameynay system aad u fudud soo gurigiisa jooga ama isagoo ku jira baa inuu maanta fasax ku maqan yahay ama isagoo baabuur saaran ama isagoo meel kale jooga si sahlan lacag u diri karo marka waxaan soo kordhinay adeeg ummadda Soomaaliyeed u baahnaayeen marka adeegaas runtii dadku aad bay uga heleen khaasatan reer Sweden runtii waxay runtii aad ugu soo najaxeen muddadii aan shaqeynay marka iminkana wadamo badan oo kale oo Yurub oo dhan ayaa dadku maanta ay ka faa'iideysan karaan. waayahay marka la Yurub dhan ka faa'iideysan karaan marka hore shirkaddan waxaad ka furtay wadanka Sweden iminkana waa ballaariseen oo saad ii sheegtay waxaad gaarsiisay wadamada Yurub oo dhan marka iiga waran dadkaasi sidee Yurub jooga lacagta u dirayaan ma wakiil baa jiro loo tagayaa ma internetka laga dirayaa qaab nuucyo bay u isticmaali karaan dadka wadamada kale Yurub jooga. dadka Yurub jooga iminka lacag way ka diri karaan systemkayga laakiin si qaabkay bay u diri karaan waxay website buu qofku booqanayaa website-ka markuu booqdo uu isdiiwaan gelinayaa markuu sidaa isu diiwaan geliyo markiiba waxa loo soo xiriirayaa dhammaan shaqaalaha shirkadda u jajaban runtii dadka caawiyaan marka barkii hore markaan ku leeyahay Sweden ayay ku ekeyd imka 25 country 25 dal oo Yurub ama qofka ha joogo Malta ama Ingiriiska ha joogo ama ha joogo Germany ama Austria ha joogo ama Holland ha joogo yani Yurub oo dhan maanta lacag waa laga diri karaa wax laga yaabaa Poland oo kale maanta in qofka Soomaaliga jooga aanu la heli karin inuu xawilaad helo oo qof la soo hadlo yiraahdo lacagta wala laga dir oo inta ama qof Germany jooga la soo hadlo ama qof Austria jooga ama qof UK jooga laakiin maanta waxaan u keenay adeeg uu kaga maarmayo waxaas oo dhan adeeg uu kaga maarmayo oo qofku website intuu booqdo sida bangiga oo kale ah kadibna iskii lacag u diran karo iyo waxa unique kaga duwanahay shirkadaha kale ay tahay qiimaha runtii 0.5 ma dhicin maanta qofku lacag uu ku dirsado marka systemka waxaan soo kordhinay waxaan hore u jirin maanta qofka kaba soo qaad tuulo jooga wax laga yaabaa inuu jirin inuu helo xawlaad uu helo lacag ka dirsan karo marka Germany ha joogo ama Malta ha joogo ama UK ha joogo dadkaas waxaan u fududeynay adeegay u baahnayeen dhammaan Soomaalida maanta Yurub joogta waxay helayaan adeeg ay kaga maarmayaan wax badan oo runtii caqabad badan oo ay la kulmi jireen inuu bas raaco inuu tareen raaco ama inuu cid la hadlo telefoon qabsado ama telefoon laga qaban waayo waxaas oo dhan runtii uu ka maarmaya maanta. waaye Mustafa marka website-kan dadkan ay galayaan saan ugu faahfaahino waa website-kiina Transfer Galaxy oo isagu markuu Google ku qoro u soo baxaya weeyaan website kale maaha yani qofku inuu website-kiina galo dabadna magaciina arko dabadna uu saas lacagta uu ku dirsan karo saas ma qofku wuxuu booqanayaa website-kayga marka ka hadlayna www.transfergalaxy.com ayuu gelayaa markuu intaa qoro markiiba waxa uu soo baxaya website-kayga waxaan haysanaa 3 luqadood oo ah dadka Sweden jooga oo kale luqadooda Swedish-ka bay haystaan iyo English oo runtii adduunka oo dhan looga isticmaalayo iyo dadka Soomaalida runtii aan u soo kordhinay luqadoodii hooyo maanta qofku inuu luqadiisa hooyo ku cilbaxo
marka system dhammaystiran ayaan u keenay qofku website-ku gelayaa markuu website-ka www.transfergalaxy.com shaashada aan kusoo qori doono galo kadibna wuxuu dooran doonaa luqadiisa luqadda Soomaali markuu doono wixiiba waxay isu bedelayaan Soomaali marka waxa weeye isdiiwaan gali markiiba uu isdiiwaan galiyo qofku kadib markuu isdiiwaan galiyo oo dhammaystiro shuruudaha ku qoran inuu qoro magaciisa addresskiisa full information ka markuu qoro kadib marka anaga la soo xiriirina haddii uu isagu u baahdo in la soo xiriiro intii aanu isdiiwaan galinba waxa jira telefono local ah oo qofku wadanka uu joogo ama Finland ha joogo ama Holland ha joogo ama Finland ha joogo UK oo kale ha joogo wuxuu dooranayaa localka telefoonka oo nala soo xiriir butaamanaya amaba contact us marka waxaan isleenahay waxa runtii ummadda ay Soomaaliyeed u baahnayeen ayaa u keenteen wana runtii wana ka faa'iidi doonaan insha Allah waayahay Mustafa wade imika waxaan ku jirnaa bishii barakaysaneed ee Ramadaan marka qiimaha marka hore aad ku diri jirteen xawaaladuna sida runtii qiimo aad u hooseeyo haayo waa 0.5 boqolkiiba ama eber dhibic 5 boqolkiiba marka bishan Ramadaan maxaa iska bedelay ma intuu baahad mise waxbaad ka dhinteen bishii Ramadaan waxaan ugu talagalay Ramadaan iyadaan soo galinba waxaan ugu talagalay dadka Soomaaliyeed ka faa'iideystaan oo runtii ay ku dirsadaan 0v waan wax khidmada ma laga qaadinba qofku $100 markuu dirayo inaanu ka fikirinba waxa khidmad laga qaadaya $100 ma shan ba laga qaadi ma lix ba laga qaadi ma afar ba laga qaadi aanu ka fikirin laakiin $100 oo sidiisiya oo systemka ay ka dirsanayo marka qofku markuu price-ka uu qoro $100 qoro uu arkaya bayna 0v meesha ay ku soo qormatay 0v yani waxa ma jiro wax khidmadaba qofka aanan ka qaadeen inta Ramadaan oo dhan marka shirkadu policy-geedu waxa weeye inay ka fikirto macaamiisheeda iyo dadka kale ay xiiseynaysaa marka shirkadu madax bay leedahay madaxduna waa macaamiisha marka haddaan dadka wax lagu celin ayaan runtii ka fikirnay marka dadkiina waan tusnay ku celinay marka waan ka faa'iidi doonaa insha Allah waayahay Mustafa waxaan doonayaa inuu faahfaahiso qofka qaab noocee buu lacagta u bixinaya markuu doonayo lacagtiisa inuu bixiyo bal shirkada bal qaabka hadda dadka u fasir aniga dadka qofku markuu doonayo inuu lacag diro oo bixiyo waxa uu ku bixinayaa iminka dadku lacagaha qaabka u bixiyaan waxa weeye markuu gurigiisa kirada bixinayo qaab uu bixiyaa marka qaabkaas oo kale ayuu bixinayaa wuxuu dooranayaa bangigiisii marka kaba soo qaad qofka Holland jooga maanta wuxuu dooranayaa systemka markuu soo qole uu lacagta yiraahdo bixi waxa uu soo baxaya ideal markuu taabto wuxuu ka dhex dooranayaa bangi waxa ku jira ilaa 15 bangi liiska bangiga uu leeyahay buu ka dooranayaa kadibna bangiga uu leeyahay markuu doorto saas uu ku bixinayaa Finland qofka jooga oo kale saas oo kale isaguna bangiga uu leeyahay ayuu ka dooranayaa Sweden qofka jooga bangiga uu leeyahay ayuu isaguna ka dooranaya marka laba qaybood weey qaabka lacag loo bixiyaa waa in qofku bangigiisa uu ka doorto iyo in adeegyadan Mastercard iyo Visa card inuu lacagaha ku bixiyo marka online-ka lagu iibsado marka waxa weeye labada qaybood ayaan haynaa inuu qofku bangigiisa ku bixiyo iyo inuu kaarkiisa isticmaalo kaarka ku bixiyo marka labadii qayboodba waa u diyaar marka dad badan runtii way ka faa'iidi doonaan waxaan isleeyahay inaanu ka fikirin waxa laga yaabaa dadku inay ka fikiraan kaarka iyo ama la arki karaa laakiinse qofku wuxuu haystaaba inuu bangigiisa toos u lacagta uga bixin karo marka waan soo dhaweynaa runtii dadka waayahay waxaan doonayaa ku weydiiyo mustaqbalka maxaa qorshaha ku jira iminka waxaad soo kordhisay shirkad casri ah oo sida iminka qaabkan fudud ee dadku isticmaalayaan marka mustaqbalka ma laga yaabaa bangi oo kale aad u bedeshaan oo arrimaha internetka si weeraysan runtii waxa ilaahay loogu mahadnaqo dhalinyarada Soomaaliyeed oo guulo badan gaaray waana runtii ducada dadka Soomaaliyeed ilaahay ma runtii waan iyaga laftigooda waan u ducaynaynaa mustaqbalka halkan u soconaa waxa weeye in systemka Transfer Galaxy adduunka oo dhan lacag laga diri karo iminka Europe oo dhan baa lacag laga diraa laakiinse in adduunka oo dhan laga diro North America runtii waan u soconaa Australia waan u soconaa insha Allah iyo New Zealand marka insha Allah mustaqbalka waxa weeye in systemka ugu fudud ee lacag lagu diri karo khidmadda ugu jaban ee uu qofku heli karo marka mustaqbalka waxaan soo kala rajaynaynaa lafteeda dhinaca bangiga waan u soconaa in dadka ay shirkadda dadka Soomaaliyeed ay helaan ama Europe ha joogaan ama North America ha joogaan ama Australia ha joogaan inay helaan bangiga iskoodu leeyihiin mar walba fikirka iyo visionka iyagu waxa weeye inaan ummadda Soomaaliyeed u adeegno magacooda aan soo saarno waayo ugu dambeyntii Mustafa ka warana deemanka muddo dheer baad dhisneedeen sida dadku ay u soo dhaweeyeen shirkadiina iyo macaamiishiina iyo aad baa imika loo hadlayaa shirkadda marka iyaga waran si dadku u soo dhaweeyeen shirkadda runtii dadka Soomaaliyeed runtii aad buu u soo dhaweeyay shirkadda oo shirkadii runtii dhalinyarada Soomaaliyeed asaaseen dhalinyarada Soomaaliyeed ay leeyihiin
marka runtii guulahaasi waa guulo dadka Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxeeya maanta dhowr biladood baan ku guuleysanay biladahaasi maaha wax kaliya anaga aan iska u yeelanay laakiin waa wax ummadda Soomaaliyeed runtii sumcad u ah in maanta dhalinyaro Soomaaliyeed fikir ay keeneen ilaa heer wasiiro maanta ay ugu yimaadaan xafiisyadooda marka horena uma dhicin runtii marka waxaan isleeyahay waa ducada dadka Soomaaliyeed iyo ummadda kale Islaamkaaba marka waxaan halkan laftigeeda doonay uga faa'iideysto maalmaha khayrka in ku jirno dadka Soomaaliyeed iyo ciid iyo soo dhow inaan raahdo ummadda Soomaaliyeed ciid mubaarak dadka waliba khaasatan macaamiishayda runtii aad baan runtii u salaamay halkan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waliba khaasatan Yurub jooga adeegga u baahnaydeen waan idin keenay maanta qofka jooga Austria ama qofka Germany jooga runtii uu ku cilbaxaya systemkayga waxa laga yaabaa inaan hore u haysan adeegyadan maanta runtii in qofku online lacag ku dirsado marka Germany oo kale dad badan oo Soomaaliyeed baa ku dhiban Austria dad badan oo Soomaaliyeed baa ku dhiban Poland oo kale dad Soomaaliyeed baa jooga yani dirsan karin lacago marka iyo qofkii kale tuulo joogay ama UK ha joogo ama ha joogo Finland ama ha joogo Holland ama Sweden ha joogo marka dadka tuulooyinka jooga laftigoodu waa system ay ka faa'iideyaan oo aanay u baahnayn inay xafiis booqdaan ama xafiis la hadlaan ama ay ka fikiraan tareen inay raacaan marka runtii halkan waxaan ka leeyahay ciid mubaarakna waan leeyahay shirkadda soo booqda ku soo dhawaada Transfer Galaxy waayahay mudane Mustafa aad iyo aad u mahadsantahay daawadayaal inta waxaynu ugu dhamaaday waraysigii aanu la yeelanay madaxa suuqgeynta shirkadda Transfer Galaxy xawlaada lacagta mudane Mustafa Cismaan oo maanta aanu ku soo booqnay xaruntooda ku taala magaalada Urburu ee waddanka Sweden iyadoo shirkadana saan u sheegnaa shirkad runtii aad u casri ah oo wax far badan oo laga faa'iideeyo soo kordhisay isla markaana shirkad ay furteen dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu isu tagay isla markaana keenay fikradan cusub ee dadku qaab fudud oo ay lacagtooda u tirsan karaan barnaamijkana waxaa la socodsiinayay waraysiga ay soo qaadaan anigu Barka Cabdullaahi Maxamed inta aynu kulmanana ama dib aynu kulmanana dhamaantiinba waxaad leenahay kulanti dambe wanaagsan Mustafa aad u mahadsantahay thank you very much okay